waa mahadsan tahay waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha qiimaha leh ee caawa madasha igu martiqaaday qofka hadlaya waa nabadoon cabdi culuw cumar sugulle kuna sugan magaalada Kismaayo waxaana ay afayeenka golaha dhaqanka isbedel doonka Jubbaland aad iyo aad baan u fiicannahay haddaan nahay dadka Jubbaland ku dhaqan magaalada Kismaayo shacabkii deganaa aad buu u wanaagsan yahay ilaahay waa sanadkan nimco iyo roob iyo barwaaqo daaqi iyo deegaankii aad iyo aad buu baraaru yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa loogu shukriyeelaa haddii aan waxyar idiin taabto xaaladda guud ee Jubbaland waxaa isbuucii hadda ahaa dib loogu soo noqday madaxweynaha isbedel doonka Jubbaland mudane cabdi naasir seeraar max fikirkii siyaasadiisii iyo isbedel doonkiisii wax iska bedelay haba yaraatee ma jiro waxa uu dardargeliyey oo aad iyo aad uu kasoo shaqeeyey isku soo dhaweynta golaha isbedel doonka iyo dowladda Kenya kadibna walaalayaal waxaa inoo suurtagalay waagii hore waxaa magaaladan Kismaayo naga haysan jiray caqabado aad u waaweyn marna markii la rabo in boorka laga baxo Kismaayo ilaa iyo 3 qof oo ka bixi lahaa oo laba musharaxiin yihiin labana xildhibaan yihiin isbedel doonka ah ayagoo tigidkoodii goostay dib looga soo celiyay loo diiday inay xornimo xaquuqdii muwaadinimo ay lahaayeen inay ka baxaan kadib waxaa suurtagalay in golaha siyaasiyiinta isbedel doonka musharaxiinta ay fadhiistaan kadibna madaxweyne cabdirashiid xidig uu hogaamiyo ay soo raacaan labada madaxweyne iyo siyaasiyiinta soo raacaan uu ka mid yahay afay uu ka mid yahay sheekh cabdiraxmaan maxamed jibriil ayna la kulmaan dowladda Kenya ay kula kulmaan eelboorkeeda ama UN compound-ga kadibna waxay halkaasi u sheegeen cabashadoodii ay u gudbiyeen waxaa loo ballan qaaday in eelboorka Kismaayo uusan mar dambe qof muwaadin ah oo isbedel doonka ka mid aan marnaba aanan laga xakamin aanan caqabad laga gelin kadibna waxay la kulmeen madaxweynihii hore ee Jubbaland Axmed Madoobe amar bay ku siiyeen inaysan mar dambe howlaha uusan dul ku leeyahayna uusan mar dambe samayn isla maalintii ku xigeenna waxaa si xornimo ah uga baxay magaalada Kismaayo musharax madaxweyne Cabdiwahaab oo loo yaqaano kun iyo labadii xildhibaan oo mid ka mid markii hore caafimaad ahaan u socday oo muddana ku xayirnaa Kismaayo horta halka dhankii airportka hadda waxaa ka jira xornimo iyo reereyn waxaa soo haray hadda caqabadaha aad maqasheen in dekeda Kismaayo gaari uu leeyahay madaxweynaha mudane seeraar maxa uu ku xaniban yahay iyadana madaxda isbedel doonka cabashada way u gudbiyeen hay'adaha ay qusayso ama ciidamada AMISOM jawaab baa laga dhowrayaa iyadana sida deked airportka loo fasaxay in dekeda madaxda isbedel doonka waxa la waxay doonayaan inay kala soo degi doonaan baa laga dhowrayaa talada Jubbaland waa la isla haystaa oo bardhac weeye waxaana ilaa hadda aad iyo aad loogu rajo qabaa oo la doonaya oo laga warsugaya dowladda federaalka oo iyadana mashquul ku ah maamul sameynta galmudug intaas way warbixinta guud ah anigu hadda idila wadaagayo iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee magaalada Kismaayo hadda ka jira walaalayaal shaarib adiga wareysiga qaad waaya cabdixakiin nabadoone horta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu soo dhaweynaynaa golaha SYL hadda ka horanta markii kugu horeysay maahan sidaad noogu warrantay aad baan kaaga mahad celinaynaa mar saddexaad dadweyne aad u badan baa ku dhegeysanaya Soomaaliyeed oo dunida dacaladeeda kaga jira bal haddaan kusoo noqono adiga cabdixakiin ahaan waxaanu ogeyn jirdil iyo dhibaatooyin in aynay kugu sameeyeen maamulkan cid dambe oo arrintaadii isweydiisay ma jiraa xageesa ku dambaysa haddii la isweydiiyey waxaa jirta waktigii dad badan oo la xiray oo aniga ka mid ahay hore xarig iyo jirdil iyo wejita waktigeeda iyo xisaabtankeedana maba la gaarin sababtoo ah raggii isbedel doonka ahaa ama ha noqoto isma ha noqoto ama madax ha noqoto ama wax la darxiil ha noqoto dagaalka waa soo dhamaaday waana lagu dayay in la dilaa lagu dayay in la darxiila lagu dayay in la xiraana lagu dayay waan diidna mabda'ayna isbedel doonka anagu marnaba aynu joojino waxaan nagu xiray shacabka Kismaayo degan iyo dadka shacabka anagu aynu matalno odayaasha u nahay mid ugu dambeysay haddana lagu dayay waxay ahayd in loola diido xaquuqdii aan basic aan u lahayn inaan dhoofi karno aan soo degi karno
tiina waxay noqotay iyadana mid hadda lagu hungoobo marka haddii ay su-aashaadu tahay ma la xisaabtamaysaa qof walba oo tacadiya sameeya oo dhibaato sameeya ama maamul kastoo sameeyo waqti bay leedahay lala xisaabtamo hadda waxaan la dhacaynaa in aynu xornimo u helno xaquuqdii annaga aan lahayn qofka bini aadanka uu lahaa inuu dhoofi karo inuu hadli karo inuu safri karo inuu shir qaban karo tii baan wala hadda ku jirnaayo ilaahina waa nagu guuleeyey waana nagu dayey wayna suurtagal weysay fudayga ayaga in annaga faafreed lagu sameeyo ama afka mataqaana laga qabto ma la joojinayno annaga iyo shacabka annaga intii Jubbaland ay ka helayso isbedel ama maamul loo wada dhan yahay inaanu xaqa ka hadalno joojin bayno insha Allah waaya waad mahadsantahay waxaad noo sheegtay in aad sugaysaan maamulka galmudug inta laga soo dhameynayo dowladda federaalkana cidda loo xayiran yahay iyada ay tahay maadaama aad tahay afhayeenkii dhaqanka Jubbaland ma kuu muuqataa in Kismaayo mar labaad doorasho ay ka dhici karto oo halkaas ay imaan doonto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadii wasiirkeeda arrimaha gudaha waddanka Soomaaliya waa waddan xora ee dowlad ka jirto dowladeeduna madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre mar hadda intaas ay tahay dastuur ka jiro baarlamaan ka jiro maamul goboleedyadana ay hoos tagaan dowladda Soomaaliyeed habraaci ugu dambeeyay ee doorashada Jubbaland ay soo saarto waxay soo saartay bishii October waxaana sheegtay saddexda madaxweyne ee ku sugan magaalada Kismaayo in madaxweynayaasha kaloo shahay inaysan aqoonsanayn in waxay ku soo dowladda soo saartay wasiirka arrimaha gudaha uu soo saaray in la raaco habraaci October marka hadda waxaa shaki ku jirin markii galmudug ay hawsha ka soo dhamaato in habraacaas October soo baxay la tixraaci doono lana dhaqangelin doono annagana diyaar u nahay mataqaana dadkii kaabil ahaa oo geeski ka istaagi lahaa inuu nahay waaya waa gartay isla su-aasha haddaan kugu soo celiyo aan si kale kugu dhigaba dad badan oo Soomaaliyeed ama Jubbaland ha ka soo jeedaan ummadda Soomaaliyeed ha ahaadeen waxay aaminsan yihiin Axmed Madoobe sidii horey buu ugu diiday dowladda dhexe inay uga soo degto magaalada Kismaayo oo maamul loo dhan yahay oo daahfuran oo ummaddu ay wada leedahay lagu qabto halkaa inay weli calaamadii ay weli cakirintu ay taagan tahay marka ma waxaa jira tabar la-aan hadda Axmed Madoobe ku timid waad is leedahay way kasbi kadhaa in dowladdu ay timaado mar labaad oo ay ka howlgasho هذه وحوي شخصي شعب يدق وكلا ومشى وحوي مدحوينيال باكسجن إذا مضوا إلى كور إذا مضوا ضد كم يقول حيان إذا مضوا قبيلات بكوبيين مشرعين تأيي كوكل أبترشدان مركا دولتنا عيد ديريس هبيراتي أما كور مانع كذا مجدو ما نفيد يوح عقبات كل غنية الدولة مدى الصومالية ديرية إلى كدع دونتو كسمايو وعاصمتكم الجاركة وحي هوري أو سكودي هوري أدور عينا أو فشلمينا أنت كدمنا أنجو الشعب كجبلا كل غني حتى عنقبتين تهستنا لو سيدر قانا كريمايو عنقبتين تنا وحقوا عن ديدتان كل ديدي هبراعي أكتوبر مرك الدولة لفتها الشعب كي أنجو كاشين إنه علينا عنقبتين تنا نلاقي هذا هبراعي وراعينا وهو قاسنان إن أمرك الدولة دياردية أنه رفروا مدحوينان فرماجو عن كعساننا إن مثلا أن أمر كيس قادر إنه عقبتنا الشعب كأن عقبتها تاجرنا نلاقي هرد قاضو أحمدنا الشعب كما مدحوينا شعبك وشر مدحوينا وهاوي ما ترى السجى اللي نموتها إنه جريادو كوسي جريسان عبروس يجاجو عنقبتين كذا مجلس. وايا ما صرت هذا واحد قال لي صار مقالة كسمايو dad badan ayaa siyaabo kala duwan u tuma waxa magaalada gudaheeda ka jira magaalada gudaheeda waxay dadku tilmaamaan ciidanka inuu leeyahay Axmed Madoobe isbedel doonkuna lagu ilaaliyo meesha aysan karin bixi karin bal waxaad noo iswaafajisaa sawir guud laga sii magaalada Kismaayo horta yaa gacanta ku haya meelaha la kala fadhiya oo maleeshiyad Kismaayo waxa gacanta ku hayo ciidamada ammaanka ee Jubbaland ciidamadii annaga aan wada dhisanay shalay oo wiilasheedu ay ka mid yihiin oo wiilashaadu ay ku jiraan oo dharka dowladda ciidanka Jubbaland qaba ciidamada booliiska baa gacanta ku haya nabadgelyada baa ku gacanta booliiska waxa lacagtiisa qarashkiisa bixiya 50% bixiya UNDP waa ciidamada isku dhaf ee Soomaalida ka kooban Jubbaland ciidankaas
waxa weeye siyaasaddu waa ka madax bannaan yihiin iyo saraakiishooda ammaanka magaaladu raggaabaa dadka isku haya ee xakameeya waxaana mar walba diyaar u yihiin isbedel kasta oo yimaada iyo dowladda jubbaland la samayn doona in ay raacaan una hoggaansamaan ammaanka haddaa weydiisay shacabka iyo annaga oday dhaqameedyada ah oo kaashanaya ciidamada jubbaland baa gacanta ku hayna oo iskaashanayna mana marka waxay leedahay nabadoon colo waa raalli ah hadda ciidanku ciidan nin leeyahay ma aha ciidanku ciidan annagu aan leenahay wey waayo hadda marka waxaad noo sheegaysaa oo aad nala wadaagaysaa ciidanka jubbaland ilaa heer police ilaa heer military inay yihiin ciidan ka madax bannaan siyaasadda axmed madowna uusan xukumine u dhexeeya mucaaradka iyo isbedel doon iyo waxoo dhan dhexdhexaad u ah oo ciidan jubbaland ay leedahay oo halkaa u taagan baad noo sheegaysaa inay yihiin ciidamada jubbaland hadda ku sugan waa ciidamo ka madax bannaan siyaasadaha hadda ka jira dhowr mar oo la damcay in la isticmaalo oo meel lagu weeraro way diideen marka sidaas awgeed baa taa waxay ii caddaynaysaa in ciidanku ay yihiin ciidamo shacabkooda iyo dadkooda iyo isnimadooda iyo dadkooda u naxaya isla markaana shalana ninka siyaasiga wuu imaanaya wuu tegaya laakiin ciidankan ciidan jiri doona wey joogi doonan wey waxay tuutaa u qabaan waxa weeye inay difaacaan dadka iyo dalka ayagu ay mataqaana u dhaarteen wey waayo haddaan mar damba su-aal hadda ka hor noo sheegta aan kugu celiyo aan dib kugu celiyo madaxda isbedel doonka oo ugu horeeya xidig iyo seeraar shaka siyaasadeed ayaa soo kala galay baa la yidhi intii uu ku sugnaa magaalada nairobi haddana dib ayuu ugu soo noqday magaalada kismaayo wuxuuna sheegay inaan mowqifkiisa waxba iska bedelin xidigna mar uu hadlay wuxuu sheegay rajadii ay ka qabeen dowladda dhexe inay gabaabis tahay oo ay u arkaan dowladdu doorka ay ku lahayd maamulkan jubbaland dhismihiisa iyo garab istaagiisa inay doorka ku lahayd meesha ay ka maqan tahay labadaas su-aaluhu isa saaran xoogaa aad moodi kalsooni darrada iyo midda dowladda dhexe lagu eedeynayo adoo soo koobaya waxaan walaal kuu sheegayaa haba yaraatee shacabka madaxweyne xidig hadalka uu sheegay waa sax dowladda federaalka madaxweyne farmaajo iyo xasan khayre meeshii laga doonayay in ay garab istaagaan ay hiliyaho ku bixiyaan madaxda isbedel doonka uu hormood ku yahay madaxweyne xidig adeertaasi ma dhicin waxay noqdeen inay mashquul ku noqdaan galmudug dowladdu way sa ballaaran tahay hal meel inay mashquul ku noqotaana waxay u tahay daciifnimo waxay samayn karta guddiyo way u xilsaari karta howlaha dardargeliya marka dhaliilada ka imaanaysa waxaa weeye annaga mabda' baynu aaminsannahay principle baynu aaminsannahay dowladdanada waxaan ku dhaliili karnaa in ay aad u cagajiinayso aad iyo aad mataqaana hawshii laga doonayay dardargelintiina kama hayno madaxweyne xidig hadalku ka sheegana waa sax weeye mid waxaa soo hartay mugdiga la sheegayo ilaa iyo hadda qofka qowlka afkiisa iyo qowlkiisa ayaanu annagu cabiraynaa madaxweyne seeraar ilaa hadda mabda'iisa wax isbedel aan ka haynaa haba yaraatee oo ama mugdi dhankiisa hadda annaga nooga jiraa ma jiro markii la aadayo ciidamada dowladda kenya loo dacwoonayo waa nala socday wuu taagnaa dacwaduu wax ka fulinayay marka wax isbedel hadda aan ku haynaa haba yaraatee ma jiro laakiin dad doonaya baa jira inay dadka kala qaybiyaan ay dadka kala dhexgalaan ay dadka u kala sheekeeyaan cadowga doonaya inuu annagana kala qaybiyo xukun lagu sameeyo taasna waan ognahay waana ka foojignahay waana mataqaana mar walba waynu ka waa ka midaysnaan doonaa inaanu hal meel uga soo wada horjeysana insha allah waya gunaanadkii iyo guntii iyo gabagabadii baanu soo gaarnay ciidamada kenya oo ku sugan jubbaland waxaanu ognahay inay si dhow ula shaqeynayeen axmed madoobe weliba caburinta shacabka iyo isbedel doonkan ay caqabad ku haayeen wax isbedela ma jiraan ilaa iyo intii ayaga iyo dowladda xiriirku dhex maray kenya xilligii inuu isbedel ka jiro waxaa kuu sheegaya waxaa sababa caqabad laga haystay annagu qofkii fikir siyaasad axmed ka soo horjeestana waa la darxiili jiray qaarna eelboorka laga soo celiyay haddana dowladda kenya cabashadayna markay gaadhayna waxay inoo fasaxday inaan dhoofi karno ka imaan karno eelboorka saarabna aan ka samayn karno marka taa waxaa suurtageliyey waa isfahamka dowladda federaalka iyo dowladda kenya ay ku wada yeesheen magaalada nairobi waya aad baad u mahadsan tahay maamulka puntland oo markasta sheega inay saameyn weyn ku leeyihiin dowlad goboleedka jubbaland warar hoose ayaa waxay sheegayaan in khilaaf uu ka dhex jira madaxweyne deni
iyo madaxweynihii hore axmed madoobe oo taageeri jiray kabacdi dilkii nin ganacsada ahaa oo lagu dilay magaalada kismaayo ama lagu qaarajiyey oo magaciisa la oran jiray john igu ciidankaas waa dilkii siciid addoon kadib waxaa la madmadoobe iyo dani madmadooba soo kala dhex galay adeer waxaa weeye arrinta anigu ma ogi laakiin waxaan kuu sheegayaa annaga heshiiskoodana wax faa'iide nooguma jirin oo dad dulmi ku heshiiye ahaayeen annagana la dulminayay puntlandna jubbaland mar walba inay dulmi ku samayso nagu samayso oo aniga kula hadlaya ayaa isku heeb ah isku jifo hoose ah dhibaatay nagu hayaan ayagoo puntland joogaya waxay jecel yihiin inay siyaasadda jubbaland inta ka maamulaan dowlad waxay heshiis ku ahaayeen diidmada dowladda federaalka ah haddaabay leedahay waa iskhilaafeen waxaan filayaa waxaa weeye waxay noqonaysaa dadkii ku heshiiyey shala dulmi ku heshiiyey ilaahi subxaana watacaala khilaaf kala dhex dhigay annaguna waxaa weeye wax ay noo hayeen haba yaraatee ma jiro dulmi waxaan ahayn muuse ka shaqeeyeyn dani ninka la yihahdo puntlandna waa isku dilay annagana waana dulmiyey haddaan nahay beesha weli jifadiisa anigu ka abtirsanayaaye qaas ahaan beesha harti aad buu u dulmiyey dulmi weyn buu ka gaaray midda daaqadna waa dulmiyey midda deegaanka soomaalida reer jubbalandna waa dulmiyey inuu dhexdhexaad ka ahaaday aheyd muusan ka ahaan marka dani waxaa weeye haddana isagaaba lagu kacsan yahayo maamul kale laga samaynaya intaasaan oga baxaya arrintan kale laakiin anigu khilaafkan xaaji siciidoon mawgi wax oga kama haya mintaas waayahay aad baad umahadsan tahay kaasuna wuxuu ahaa nabadoon colow oo si toosa qadka teleefonka uga jira magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka jubbaland dad weynaha badan oo ku dhegeysanaya oo kasoo jeeda gobolka bal maxaad kula dardaarmi lahaa aad ilowdaad u sheegi lahayd intaana kusii dayn walaalayaal waxaan dadka iyo shacabka iyo reer jubbaland iyo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan idiin sheegayaa waxyaabaha social media la mariyo ama isbedel doonka beenta laga sheego oo la yidhahdo way iskhilaafeen way kala tageen lacag baa hebel la siiyey hebel baa mataqaanaa jaga loo ballan qaaday warkaas waxaa weeye waa war xun oo lagu waaweeye waxba ha aaminina waxaad aamintaan annaga toos noo soo wareysta meeshaan madashaan naga soo wareysta saxaafadda naga soo wareysta baraha bulshada annaga aan ku leynahay beejajka aan ku leynahay daalacda marka taasaa saxa waxaan kale meelaha hugaada lagu hayo wararka cadowga weeye waxaa kaloo raacdan dowlad soomaaliya ka jirta dowlad hore inay u socoto hadda waxaan maraynaa xilli fiican xataa deymihii lagu lahaana laga cafiyey maanta dowlad baana deeqday qabiil nabad deeqo haddee qabiil uu maanta wax yahay aniga oo nabadoon ah oo cabdi cudow ah oo u dhashay beesha harti oo u dhashay beesha majarteen oo u dhashay beesha ammaanle maanta day oo isku jifanahay maanu ku tilmaameen inuu daalim yahay waxaa ugu tilmaamaya dowlad soomaaliya uu diiday wax kale xumaan noo dhexaysa ma jiro dowlad federaal buu diiday dadka mabda baa la rabaa qabiilku halkaa lagu tuuro sida anigu ninkaa u leeyahay maanta dowlad federaal buu u diiday baa la rabaa haddana inay idinkuna saas kala samaysaan dowladnimadana deeqda qabiil wax uu noo tarayo haba yaraatee ma jiro qabiil waa basal waa qurun nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nagala tartaarmay ka taguu yidhi waxaan waa qurun weeye dowladnimaana deeqa sharciga islaamka waa iska xukunaana deeqda dadka daris wanaag baa deeqda xeerkii dhaqanka u lahaa baana deeqa intaas ha lagu wada dhaqangeliyo ha lagu mataqaana ha la fahmo intaasaan usoo jeedin lahaa dadka dhegeystayaasha ee golaha aad hadda iga wareysanaysaan